Uqaasha dhaqanka ee gobolka Awdal oo maanta warfidyaanada kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay markii ugu horeysay fariin u direen dad ay sheegeen inay ka guurayaan gudaha magaalada Boorama waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaana waxay sheegeen in wax gudahaanba wax colaad oo ka jirta gobolka Awdal aysan ogeyn odayaashan iyo waxgaradkan oo bulshadaasi fariin u diraya ayaa waxay yiraahdeen jira dadkii deganaa Boorama gobolka Awdal deganaa ee walaalaha ahaa oo qaarkood guureen ama guurayaan baa noo muuqda aad iyo aad baan uga xunnahay in la yiraahdo gobolka Awdal cabsi la dareemo ama cabsi warga guuraa la yiraahdo aad baan uga xunnahay gobolkana ba qabato walaalnimada ba qabato waxaan leeyahay walaalayaalow waxa la wax dhibaato ay haystaa ma jiro nimcaan ku jiraa alxamdulillaah gobolku waa nabad cid barti ku yihi ma jirto وودكيني وحبرتيه بجران هل جوجيو وحدنبه يا لدباتينين يا جيدلو هرسيدين هل جوجيو وحد ku baaqayna in arrintaasi la joojiyo arrimaha ka socda laascaanood ee bariyahan bajiray ee muddada socda waxaan leenahay intay dhimatay ee dhinacyada dagaalka iskaga horjeeda ka dhimatay iyo intii dhaawacantayba ilaahay inta dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha boogadhayo inta wadaaraha joojiso labada dhinacba ha joojiyaan hana la wada hadlo oo wanaagga ha loo baydho naxariista iyo walaalnimada ha loo baydho ha la soo noqdaan leenahay dhaqameedkii degmada gobolka Awdal inta joogta iyo inta maqanba waxay ka midaysan yihiin sida horeba loo sheegay amniga magaalada Boorama inuu sugan yahay inay dadka jooga wadad walaalo yihiin kuwii meel walba ka yimid ay degan yihiin anaan ogoleen cid wax lagu yeelo dumarka iyo carruurta la qaxinayo ee dibadaha lagala soo hadlayna in beenta laga daayo inamada miidiyaha ka hadlaya ee maartay Boorama waxba magagelin mayso dhahayana inay beenta ka daayaan dumarka iyo carruurta awalba nabad bay haayeen awdba way deganaayeen odayaashoodii baa imika halkan joogo buuxa imikaan wada hadlaynay oo nuna weydiin wadankan maxay ka qanxayaan odayaashoodina uma sheegin odayaasha gobolka looma sheegin amniga iyo booliska gobolka looma sheegin cidna waa dumar iyo carruur dibadaha lagala soo hadlayo lagu yiri maartay qaxa marka aan waxaan leenahay war waxa anagu ma ogin cidna wax lagu yeeli maayo horena looguma yeelin dibna loogu yeeli maayo Allah wax yeeli kara oo ilaahay haynina ma jiro waxa weeyaan dumarka jooga waa kuwa iyagoo kale ubadka jooga waa kuwa iyagoo kale odayaasha jooga waa anagoo kale wax alla wax lagu yeeli kara ma jiraan annagu haday iyaga wax la yeelo annaga wax la yeelay waxaan u sheegaynaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa adduunyada inaan wax alla wax gaari kara dadkaasi oo ay ka caban karaan ama ka carari karaan la jirin galabta halkan iskugu nimid oo noogu weyn gobolka Awdal waa nabad dhulkuba waa nabad wax ka jidhib oo jirti ma jirto Soomaaliland oo dhan baa wada joogta gobolka Awdal cid kastaba way deganayd nabadgeliyo weey wax dhibaanagu ma ogin garan mayno meel warkan laga keenay waxaanu ogeysiinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta waxaan maqalay shalay baabuuraa baxay xamas baa lagu qaaday oo aqalladii baa madhan maantaan maqalay iyo aan arkayno iyadoo la gurayo aqalladu madhan yihiin wax alla wax gobolka Awdal ka jiro oo dhibina ma jiro cid wax lagu yeelayna ma jiro cid la yeeli doonaana ma jirto annaga hortay cid nooga soo muxuu ahaa loo garamarayo wax la yeelaya ma jirto waxaan leenahay haddaan odayada gobolka Awdal nahay war waxa qaxootiga meel laga keenayo warka meel ka yimid anagu garan mayno ay ku baaqeen nabadgeliyo inuu gobolku nabadgeliyo yahay Awdal dadka ka qaxayana ee mas'uuliyadooda inta ka sokaysay Ilaahay iyo dawladdu horta uu qalbadku ka mas'uula uqaashina waanu joognaa waxaan ka codsanaynaa walaalaha yeena la degan ee la yaala halkan in ay iska joogaan oo ina ka qaxin magaalada oo ina odanin waana la beegsanaya cid beegsanaysan ma jirto cid la dagaalami kartaana ma jirto cid wax yeelayn kartaana ma jirto marka waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban ba u sheegaynaa in ay waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dadkii gobolka Awdal uqaashi iyo maartay madax dhaqameedkii Awdal baanu nahay halkana waxaanu maartay ka dareen celinaynaa dhibaato aanan anagu ogeyn oo gobolka dhexdiisa la sheegayo in dadkii nala noolaa ee walaalaha ahaa
eenu awalba wada noolayn dee dagaalka ka dhacaya maaragtay sool waxa ka dhacaya annagu aad baan uga xunnahay waxa weeyaan aad baan uga xunnahay kaasi inuu maanta annaga dadka nala jooga qaxiyana diyaaruma yihin waxa weeyaan walaalayaal wixii halkan idinku qabsadaa waa waxayna wada qabsado annagana na qabsaday idinkana idin qabsaday waxaannu leenahay war sidii aan u wada noolayn iyo nabadgelyadeennii ayaannu annagu idiin haynaa waxa idin qaxiyeyna waxaan ka war hayna maaha haddii dareen jirana ciddii dareen galayay dee inaad noo sheegtood waddanka dadka odayaasha la jooga la xidhiidho ayaa loo baahan yahay iminkana waxaannu leenahay war ciddii qaxdayna ha soo noqoto ciddii iminka qaxays lahaydna waxa weeyaan odayaadii nabadgelyada maaragtay ka shaqaynayay baannu nahay ma ogin wax ka dhacay halkan dadkaa qaxayana waan ka xunnahay waa walaalahayo waa la wada degan yahay xor bay ku yihiin dhukan waa dhul la iska leeyihiin dhukani dhul lala leeyahay ama lagu maamulo maaha dadkaasi yagaa oday isku ah yagaa ismaamula yagaa maxkamad iyo meel walba yagaa ka mas'uula waa reera nala mida oo nala degan walaalahayaa wey sidaa darteed waxaan codsanaynaa oon leenahay walaalahayo waxa weye inay dee wax noo sheegaan bay ahayd qaxistaa ma ogolin intii baxdayna inay soo noqotaan jeclay inta joogtaana inay ay joogtaan jecelahay annagaa ka mas'uula wax yimaadeen waan ka wada hadlaynaa odayaashoodana waanu yeedhaynaa waanu ka wada hadlaynaa wixii jiran iyagaa noo sheegi doonaa waxaanu hordhac baan uga sii dhigaynaa hadalkaa in dadku u arkaan dee ina ka soo boorama laga soo qaxay dee boorama nabad baa jirtay nabaddii walaalahayo yaa ka jirta meeshee waxa ay ka qaxeen ma ogine waxaan leenahay annagu nabad baan ku baaqaynaa onayo oo gaariyaal 3 cishaba baabuur raacayaa lanoo sheegay annagu waxay dadkaasi ka soconayaan ama ay ka tegayaan waxaan ka ognahay ma jirto waxaan ognahay dalku inuu nabad yahay inay gobolkan awdal nabad yahay caaqiliintii baan nahay kuwa nabadgelyada ka shaqeeyaan nahay ma ogin dadka wada degan waa walaalo meel kasta ka yimaadaan waa dad wada degan magaalada waa dad isku mid ah waa dad walaalo weey waxaan aad uga xunnahay haddaba hadalkan maqalay ee la yidhi 3 cishaba way qaxiyeen oo guryihii bay ka baxeen oo magaalada ka baxeen oo waxay u qaxeen Itoobiya tageen annagu dadka ma ogin nabad baan ognahay waxayna nagu tahay meel ka dhac bay nagu tahay in magaalada iyadoo nabada oo annagu nahay mas'uuliyiintii waddanka iyo odayaashii dee maartay caaqiliintii nabadda ka shaqaynayay annagu been sheegi mayno waxaan ognahay nabad baan ognahay waa Shucayb Maxamed kaan Shucayb guys